kaamiradaha iyadoo ay ku shidan yihiin oo uu live ku jiro ayuu ka hor dhaartay malaayiin Soomaali ah oo live u daawanay xalay saqdii dhexe inaanu ogeyn in la qabay waxa uu ka dhaartay sixirka baraha bulshada la isla dhexmarayo. haddaba waxaanu idin haynaa idina soo gudbin doonaa muuqaal uu xalay saqdii dhexe soo duubay Kamaal Cabdullah oo dhaaranaya macluumaad dheeri ahna bixiyay. ha yeeshee daawadaynteena barnaamijka ugu gudagelin hadda channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadaan la wadaag soo dhawaada barnaamijka nafiyay samirka raacday saxariir ku daawacay nafi laga sarcale allona suusraa waxaa maalmahan baraha bulshada aad u haystay arrin aad uga fajicisay guud ahaan bulshada Soomaalida taasoo ah in YouTuber Soomaali ah oo caana laguna magacaabo Kamaal Cabdullaahi la sheegay inuu aroosay ama guursaday naag la qabo oo xaasa markaana dhashay 5 caruur ah kadib markii uu soo shacbaxay arooskooda. ayaa waxaa baraha bulshada isqabsaday qayle ka soo yeedhay ninkii qabay naagtaas iyo caruurtii ay dhashay. isqabqabsi dheer kadib waxaa soo hadlay ninka qabay gabadhan uu Kamaal guursaday oo sheegay in xaaskiisa laga sixray markaana uu sixray YouTuberkan Soomaaliyeed ee ku nool dalka Malaysia ee Koonfur Bari Asia. waxaana uu sheegay ninka qabay oo lagu magacaabo Cabdisalaan ayaa sheegay in xaaskiisa ay sixran tahay markaasna iyadoo la qabo ay nin kala guursatay. waraysiyo badan oo isdiidan ayaa baraha bulshada qabsaday sida YouTube-ka waxaana soo hadashay gabadhan iyadoo la qabo uu guursaday YouTuberkan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Kamaal Cabdullah. kadib waxaana soo hadashay gabadhan iyadoo la qabo oo guursatay YouTuberka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hani ayaa dafirtay caruurteedii iyo sidoo kale odaygeeda. waxayna sheegtay inaanu qabin ninkaas aanay guur soo marin sidoo kale wax caruur ah aanay dhalin. intaas kadib arrinka ayaa cirka isku sii shareertay waxaana soo ifbaxday inay been sheegayso. haddaba waxay sidaasi arrinku ahaataba ayaa hadda waxaa soo hadlay Kamaal Cabdullah saqdii dhexe halay isagoo kaamirada hortiisa ka hor dhaartay iyadoo malaayiin Soomaali ay daawanayso si live ah. Kamaal Cabdullaahi oo isagu ahaa ninkan guursaday naagta la qabo waxaana uu sheegay in baaritaan dheer kadib uu ogaaday xaqiiqada dhabta sidaasina ay khiyaantay naagtan markaasna isagoo murugaysan uu hadda runta ogaaday markaasna uu dadka hortiisa ka dhaartay waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in la qabo xaaskan. ma ogeyn buu yidhi mana ay ii sheegan in la qabay isagoo ay kaamiraduhu ku shigan yihiin. saqdii dhexe xalay ayuu muuqaal soo duubay isagoo si live ugu hor dhaartay bulshada Soomaalida. maruu la hadlayay dadka ku xidhan waxa uu sheegay inay u sheegtay inay madax bannaan tahay sidoo kale aan wax caruur ah aanay dhalin haba yaraatee isagoo kitaab quraana gacanta ku haysta sidoo kale dhaaranaya. waxaana uu sheegay inuu markii u arkay sida looga falceliyay guurkooda uu xidhiidh badan iyo baaritaan badan ayaan ogaaday inay xaas tahay. arrinkaasna waxa igu abuuray walwal weyn iyo naxdin markii ay sidaas tahay xaalka ayaan xidhiidh la sameeyay. waxaana ku dhahay walaalay maxaa sidaasi igu gashay oo asaa igu galisa aniga waan soo ogaaday inaad tahay xaas oo ninku qabo caruurna aad leedahay 5 caruur ah. dood dheer kadib ayay qaratay inay xaas ahayd. fajac iyo amakaag ayaa igu noqotay buu yidhi arrinkan. haddaba Kamaal oo ka hadlaya dhacdadan iyo sida ay wax u dhaceen iyo bilowgii iyo sida gabadhan ay isku barteen iyo xaqiiqada dhabta aba iyo isagoo dhaaranayaba waa kan muuqaalkii ee daawasho wacan. فيديوغان anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been meedin sheegay aan 2 rakac soo dugtay Maxamuud 2 rakac soo dugtay gacanteedana waxa ku jiro kitaabka Ilaahay wax walba video aan ka sheegayo hadda horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkan ku dhaaranaa wax walba si Ilaahay la ogyahay aan u sheegaa. gabadhan marka hore aan shukaansan jiray aan isbarani wax ay ii sheegtay ayaan leedahay nin ay kala tageen ama asqab ma jiro
ilaahan ku dhaarta ilaahana ii jeedo. Sidoo kale waxaan arkaya dad badan dhahayaan Kamaal gabadhan waa sixradi. Horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala abaal ah wallahi inaan isku dhaqaaqayn aan hubaa. Waxaan xaqiiqsaday marka hore aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay. ugu dambeyn waxaa afka furtay Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa salaamantiin dhammaantiin meel kasta adduunka ka joogtiin waxaa idin wanaagsan videogan waxa waaye video xamaasadiisa iyo wax walba wato waaye. Videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been ma idin sheegay ani 2 rakac soo dugti Maxmuud 2 rakac soo dugti gacanteedana waxaa ku jiro kitaabka Ilaahay. wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa wax walba si Ilaahay la og yahay aan u sheegaa. midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay sax ma fahmaysaa sax marka ma ahayn in meeshan la keeno laakiin sidii dad badana ku wareeray arintan yani dad badana falanqeeyay dad badana seerabaan yani nin walba fikradiisa ku soo bixiyay sida loo cadeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahana la og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yawma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaah uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno sidee wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaanee kitaabka waa kana Maxmuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha ii jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegaya waa run adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaan ku dareen kitaabka ilaahay quraanka kariimka waa arkaysiin marka kitaabkan inta video aan dhameynayno intaas noo yaala wax beenan sheeg marabna anaga horta sheekadan waa la socotiin dhammaantiin qof aniga xaaskeyga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay arintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheegay waaye marka hore saa idin cadeeyo waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jirin aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama asqabi ma jiro ilaahan ku dhaarta ilaahana ii jeedo. sidoo kale waxaan arkaya dad badan dhahayaan Kamaal gabadhan waa sixradi. Horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala abaal ah wallahi inaan isku dhaqaaqayn aan hubaa. aniga kaba soo qaad yani qof yani wax iska dhahawa xaqiiqad ma horta waxaan ka dhaharaa taas sixirka haddii aas noqdo ma hadaas ma ku saabsan jahaatu zuur yani qof waxa ogeyn qiila waqaala qof aa soo dhahay ama qof aa soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkan wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican waqaala ana ma kula xisaabtamahay ninkan ma kula xisaabtamahay yani adi ilaahay sax waa marka su'aasha waxay taagan tahay ma gabadhan Kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama la soo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen. sidoo kale sheekadan hadda in aan la soo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogayaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda baryahan dhan anaga wallaahi been ma idin sheegay ma seexanin ani Maxmuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna kaliya xog rasmi ah xog xaqiiqi ah waxa la noo sheegay kulli waxa la lahay 100 qof been isku raaci karto masti hal eray isku raaci karaan hal eray isku raaci karaan marka wax walbo ku saabsan xogta ah helni Maxmuuda ka sheekeen doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa marka Maxmuud aa u wareejinaa wallahi been idin sheegay video aan duuran balkoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma leeysan kartid sababtoo gudaha mugdi waay nalkiina waa naga halaabay marka hadda aarwa Maxmuud inaa u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raacay asiga ka waramaayo soo dhow Maxmuud Soomaaliyeed meel walba joogto dhamaantiin way salaamayaan
horta arrintan cirka isku shareeraysay dad badan yani Soomaali oo dhanba dheh way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo Ilaahay ila ogyahay arrinta uga hadlaya Kamaalna yani waa la hadli karay arrinta waxaa sameeyay horta anaa sameeyay xiriir ah waxaan sameeyay inaa yani dadka ayada relative-keeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka Kamaal u bandhigay marka Kamaal waxaan dhahay arrintan saan loogu hadlayo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yani idahooyso oo dhaariyay oo ani idahooyso yani ma qabo yani mana lee qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar waa og tahay cidlama ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay u qasabtay in ani raadiyo kaligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay Maxamed la dhahay asna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook ay dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas raadiyay mustaqaaniinaan lahay Ilaahay ma kula ogyahay dad ani waxa raadsanay oo mas'uuliyiin ah marka Ilaahay ma kula ogyahay wuxuu dhahay Ilaahay waa ila ogyahay hadaa rabtid ay sheegi kartaa يعني wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan hadana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax hey ngapain ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ii sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahamtay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meesha horta xaqiiqada meesha ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eedo kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaha habareerteed wala hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xambaro in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yani haduu ciyaalnimada ku yaqaanay xitaa waxa ku dheelayso sheegaya ma fahamtay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ay cadaatay Kamaal marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay Kamaal arinta misla ogyihiin wallahi oo billahi habeena kurbaysna inaan isla ogaay Maxamed ma waa ogaaday markii isina aniga marka maya ilma soo kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guulis Maxamed aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala family-kii kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhanaaso yani arintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyo Kamaal saana jirto arinta dhanna waatana hatta adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka Kamaal ku soo wareejiyay Kamaalkii marka waa fahmay Kamaalkii ama kaagal ku noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintana waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yani magac Ilaahay ka weyn dhaar ay tagtay arintii marka xaqiiqadii wixii aan soo ogaaday information-keeda hadda wax aan la sheegi karin yani xaqiiqooyinka dhan waxa jirto wax oo family issue ah oo waliba top secret ah markaas soo ogaaday ayadana aan la socodsiiyay ay fahantay markii dambe yani alxamdulillah afkeeda ka qaratay ma fahantay marka Kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arinta Kamaal u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka Kamaal marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka inaa ka hadashid ay sheegtid waay wixii bayaan yani wixii oo aragtay Ilaahay kula ogyahay صح وأنا وحن قرن ما صوته حتى فيديو أندور دقيقة دوين حتى نص عمرنا دقيقة دوين كدب بس مركي فيديو وعدين توان سوفريسي
wax la qarinayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga ah haddii isku dhaho aniga ilmo ma dhalin weligii wax ma soo marin waa aamineen sax ilaa qofkan markaa shukaansanaysa wejiga muu qoran maxamuud haddana midda kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yani hiblaayo wasaana ku samaysay yani ma dhihi karo yani adoo qof weyn ayna dhexdeedna yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan hadduu dhihi lahay waxayse babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arrintaas shaki waa dhalin kartaa ase xitaa shaki waa ku dhalin kartaa yani taas inaa xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiyaa jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin haddaa dhaho yani qofkan asaa dhalay asigin ku dhahoy ma dhalin yani confuse aa noqonaya ma fahantay marka arrintana waxaa fiican markay xeerkan oo kale marayso oo ay marayso itusi oo itaabsi marka ma la rabo inaad dhahdid yani ma loo baahneen marka adna yani waa kuu garaabayaa yani wax yani oo ciyaal qof yani ciyaal dafirayso yani xoogaa waxa noqonaya wax la yaab leh dadka dhan ay la yaabayaan oo qof bini aadan samaynayn kolley wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan kara maaha wax laga socon kara maaha wax in dadka loo bayaanay u baahanna waaye waa sidaa la ajligeeda soo fadhiisanay oo arrinta sida saxda u jirto oo ani ilaahay ila ogyahay ninkana ilaah ula ogyahay marka idinla soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi kara ani ma aqaani marka kamaalay u taalaa horta intaas waxay ka dambeeyey maxamuud dad badanaas la hadlay dad badanaa wax u cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas maasha Allah si fiican ay wax walba igu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore kow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyey sababtoo ah qof ciyaalkiisa ingiriiska ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyey maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ay sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsanaa laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay aan hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tagay ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana aan xitaa cadeen muu haytaas in as qawwali in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna waa taas wax walba adduunka waa ka dhaca arrintan social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qaldanahay hal mid aan galin ka bixinaa midaas oo in arrintan markii koo ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadey ma dadka yani runta yani waa ku indhaadey laakiin maxamuud ana ku imaaday naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtan ku dhageysid may qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayr khadaa'un atawabun ano khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay